بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back waa mar kale iyo cashiradeyna ku saabsanaa cilmiga Android-ka ama Samsung-ka. Maanta waxaan ka hadli doonaa saad mobilkaaga ugu samayn lahayd recycle bin. dad computer-ka wax ka taqaano ha taqaan computer-ka inay jiraan waxa la yidhaahdaa recycle bin meel la yidhaahdo oo wax allaala iyo waxaad ka delete garayso computer-kaaga ay galaan sida hadhow hadaad u baahato ama ay mistake kaaga delete garaysmaan files ama videos ama images ama documents ama everyone aad everything aad delete garayso aad ka soo ceshan karto. tabtaasoo kale ayuu mobilkuna u leeyahay recycle bin. wax allaaliya wixii aad delete garayso way gelayaan. hadda yacni khaladoo kale kaaga delete garaysmato si aanad ula kac ahayn mistake aanad ula kacin adu gacanta kaaga dhacdo delete meelay kugu dhacaan aad ka soo ceshan karayso. ama laga yaabo waxaad intaas ka delete garayso hadeetan hadhow wixiista istiraha soo cesho. marka intaas ayuu cashirkan ku saabsanaan doonaa aad buu kooban yahay. barnaamijka waxaa la yidhahdaa barnaamijka hadda shaashada saaran waxaa la yidhahdaa Damster ee la yidhahdaa barnaamijka hadda shaashada saaran waxaanad ka heli kartaa Google Play Store dadka baadhood ka heli karaysaa dad ku qorto Damster sida hadda aan u qoray search markaad tiraahdo programka ugu sareeya waad arkaysaan. xitaa ratingkiisu waa 4.1 taa macnaheeduna waa application useful oo aad u fiican oo runtii dad badan ay comment ka soo bixiyeen application aad u fiicana. application-ka weeyaan application-ka marka soo rogato aniga hadda waan download garaystay laakiin adoo download garaysan doontaa install badan doontaa after installation open baad leedahay. programka saas kale ayuu kugu soo kici doonaa programka saas kale ayuu kugu soo kici doonaa deetana setting-ka ayay tegaysaa. setting-ka marka saas kale u tagto deetana protect setting-ga baad tegaysaa. intan oo dhan waxaa laga yaabaa inay off ku tahay ani iminka waan hagaajistay already on bay tahay laakiin waxaa laga yaabaa in adiga off ka tahay deetana on bad waxaa wada siinaysaa. xaggana macnaheedu waxay kuu sheegaysaa waa images waa wixii sawira ah ama jpg ha ahaado ama png ha ahaado ama tiv ha ahaado ama ayu nooc picture ama ayu format oo picture-kaasu leeyahay bartan ayuu keeni doonaa. tan labaad waa videos oo mpeg hadduu yahay ama aiv uu yahay ama mp4 uu yahay ama flash uu yahay ama waxyaaba formatiskii kale video-gu yahay isna bartan ayuu keeni doonaa. ta saddexaad hadaad hoos u raacdo bartaas waa audio waa wixii dhegeysi mp3 ahaado wma ahaado ogg ha ahaado ama ayu nooc isna sidoo kale. documentiskuna wixii qoraala ama waxyaabihii lamida other fileska oo sida zip fileska isna ku hayn doonaa. application-ka xitaa aad uninstall aad tiraahdo ku hayn doonaa sidoo aragtaan application-ka xitaa ku hayn doonaa. haddaad intaa dhamayso intaas waa inta ugu muhiimsan oo inay ku wada on ahaadaan waxba si wax kastoo kaaga delete garaysma aad u soo ceshan karayso. hadda waa inoo dhan yahay wax kastoo aad delete garayso deetan xagga buu imaan doonaa deetana aynu bal tijaabo ka qaadno. hadda galarigaygi baan jooga sidoo aragtaan haddaan bal iminka sawirkaa isiraado delete garee saan tijaabo uga qaadno sawirka aad aragtaan delete baan siiye sawirkaas uu ku daayay deetana Damster-ka haddaan tagno sanoo kale ay kugu soo bixi doonaa. marka ugu horeysa taabato sana ay kugu soo bixi doonaa waa kan sawirkan hadda delete gareeyay waa kan hadda bartan yaala. mobilka uu ka baxay laakiin recycle bin ahaan buu bartan ugu jiray weligiina uu kugu jiray. iminka haddaan doonayo inaan toos u delete gareeyo xaggan hoose hadaad aragtaan fartayda wada marayso restore iyo delete iyo share ba kugu yaala. hadaad rabto inaanad soo celin laakiin aad qof u dirto ama share aad la wadaagto qof bartan ayaad kala wadaagi kartaa.
delete haddaad doon si permanent inaad u delete garaysana toos buu kaaga bixi doonaa. Restorena waa inaad dib usoo ceshato. Restore baan ku dhufanayaa, bartiisa baan kusoo celin doonaa iminka sawirka. Restore markaan idhaahdo sawirka sidoo aragtaan bartiisa buu ku jiraa, bartiisa buu kusoo noqday sawirku. insha allah waxaan rajeynayaa inaad wada fahanteen. waana Farxaan Xasan Dalbac iisoo gudbinayay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadgelyo, intaan ku kulmi doono casharkan lamida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hana ilaawina inaad like saartaan pageka aan ku leeyahay facebooka, oo pagekana barashada cilmiga androidka aad ka heli doonto cashiro aad u xiiso badan. haddaanaad casharada hore la socon, aad ka heli doonto casharadii hore oo duuban iyo casharo meelo kale aan kasoo guuriyey oo macallimiin kale, macallimiintan cilmiga kasoo qaada aan kasoo guuriyey, iyagana barnaamij ka heli doontaan iyo casharo kale aan sameeyey insha allah. marka ilaawin inaad pagekana subscribe ku sameyso, baro cilmiga androidka. Asalaamu calaykum.